إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فالصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay kulankeenan aadka u qiimaha badan aad ugu faraxsanahay wajiyadiina quruxda badan mar labaad aan arkay allah ku mahadsan jalla wacala waxaan ka baryaa ilaahay jannadiisa inuu nagu kulmiyo siduu beedkiisa noogu kulmiyey runtii waxaan iloobi kara ma ahan dadkayga ummaddayda mar kastan waxaan jeclahay horumarkooda sidaan horay u jeclaa aanu u jeclaan doono intay xayaatadaygu jirto allah waxaan ka baryaa ummaddaydii cizi iyo karaamo iyo sharaf allah inuu gaarsiiyo adduun iyo aakhirada lan rasuulkeena moxamed sala allahu calayh wasalam markuu quraysh la hadlaya wuxuu yidhi alraa'idu laa yakdib ahlahu ninka celiyowga ah ummaddiisa been uma sheego markay abaar dhacdo qofaa waxaa loo diraa inuu soo sahmiyo biyo marka qofkaa ummaddiisa been uma sheegayo marka sidoo kale allahna shaahidu ka yahay jalla wacala idinkana markaati aad ka tihiin waxa aan jeclaa ee horumarkiina adduun iyo aakhirada kulli allah iduma khasaarinin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin raaduu soo saaray ilaahay oo khayr ah oo wejiyadiini ka mid ah ifka badan allahna aan ka baryo jannadiisa dhexdiisa inuu idinku ifiyo walaalahayga caaw waxaan isu nimid inaan isxusuusino allah jalla wacala intii la isxusuusiin ugu khayr badan yahay waa midkana abuurtay jalla wacala sidaad u jeedaan noo wanaajiyey allah kitaabkiisuu ku yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim walla insaanka waan abuurnay toosni tan ugu wanaagsan dhexdeedaan ku abuuray ilaahay allah subxaanahu wa tacaala wax lagu gaara agtiisa oo fadli ah ma ahan ilaa acmaal saalixa acmaasha wanaagsan waxaad ogaataa acmaasha wanaagsan haddaad ka leexatood ka jeesato ilaahay agtiisa karaamo inaadan ku lahayn uusanna u aabiyeelaynin ilaahay meel kasta ood ku dhacdo waxaan qiimo ku leenahay adduunyadan intaan joogno intaan rabbi jalla wacalaa aan caabudayno cibaadadana ma hagaagayso ilaa inaad cilmi u yeelato maahe sida cinwaanka muxaadaradeennii aad aragtay aad maqasheen ama aad akhrisateen alinsaan qalbu lkown weeyaan koonkan aan ku nool nahay adduunyadan aan joogno qalbigeedii insaan weeyaan allah subxaanahu wa tacaala khalqiga ugu dambeeyey uunkan uu ku soo kordhiyey ayuu ahaa insaan maalin jimco ah saacadaha ugu dambeeyey galbihii ayuu allah abuuray aadam aabbaheena calayhi asalaatu wasalaam abuuristiisana waad ka warhaysaan in dood ay ka timid oo malaa'igtii ay tidhi atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اddimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak allahayow dhulkaama waxaad yeelaysaa qof fasahaadinayo dhiig daadinayo wanaxnu nusabixu bixamdik anigaa ku tasbiixsanayna anagoo kugu mahadinayno anagaa kugu tasbiixsanayna ilaahayow anagaa ku hufaynaa
annagaa ku dahirayno, annagoo mahadintaada ku dheehan ku mahdinayno markaan ku xusayno. allah jawaabta u siiyey waxa ay ahayd innii aclamu maa laa taclamuun, waxaan ogahay waxaydan ogeyn. allah wuxuu ogaa wax badan jalla wacala, maadaama khalqigan asigu uu abuurtay. rasuulkeeni muxamed sala allahu calayh wasalam ayaa ku jiray oo khayru khalqi illah, sayid waladi aadam, aadam intuu dhalay midka sayidka u ahaa. intii qalbi ilaahay uu ka cabsado midka allah uu siiyey ayaa ku jiray ummaddan. wakadalik dadkii suusuubanaa, rasuushii, ambiyadii iyo dadka saalixiinkaba. lianna insaan markuu allah adeeco wuxuu ka sara maraa malaa'igta, markuu allah caasiyana wuxuu ka hoos maraa xayawaanka, siduu allah noo sheegay. malaa'igta shahwad ma lahan, wax ma jeclaato, wax ma necbaysato, ma cunto, ma cabto, ma nasato, ma seexato, macsiye ma samaydo. waa siduu allah ku abuuray jalla wacala. laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. marnaba alla ma ku caasiyaan, ilaahay marnaba ma ku caasiyaan, waxayna sameeyaan waxa la amrayo. waa khalqi sidaa u abuuran. bani aadam wax badanaa ku abuuran oo shahwaad ah oo ka hor istaagaya allah inuu adeeco, xataa asigoo raba ilaahay inuu adeeco. waa dafayaa, wuu khaldamayaa, sida rasuulkeenu uu noo sheegay sala allahu calayh wasalam, insaan inuu dafayo. allana uu sheegay yaa cibaadii inakum tukhti'uuna billayli wannahaar wa ana akfiru adunuuba jamiican faastakfiruunii akfir lakum. addoommadaydiiyo waad gafaysaan habeen iyo maalin. waa 24 saac, saacadda ay wareegato waad gafaysaan. subxaan allah. qof waa hurdayaa, qof waa soo jeedaa, macaasiyuu ku jiraa, qof waa shaqaynaa, qof sidaa waa insaan. alla markaa wuxuu yidhi markuu alla ka jeesado inuu xayawaanka ka hoos marayo, ulaa'ika kalancaami bal hum adallu sabiilan. gaalada markuu tilmaamayo ilaahay wuxuu yidhi waa sida ancaamka oo kale, xayawaanka geel, arilo oo kale waa. bal hum adallu sabiilan, ayagaa ka baadiyaysan, ka dhumsan. geelka, adiga, lo'da waa lagu intifaacaa, hilibkooda, caanahooda, maqaarkooda, laakiin adiga maxaa lagaa faa'iidaya? markuu dhumo insaan, xayawaankaasuu ka sii hoos maraya. marka sidaa darteeda ayaa insaan wuxuu yahay qalbulkown, adduunyadan qalbigeeda. salaaxuhu salaaxu lkown wa fasaaduhu fasaadu lkown. hagaagiisa koonkana ku hagaagaya, xumidiisana, fasahaadkiisana koonkana ku fasahaadaya. sida allah uu yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi nnaas. fasahaadkii ayaa muuqday oo waxaa laga wadaa abaartii, dhibaatooyinkii ayaa wuxuu ku shaacay fi lbari waalbaxr. wixii dhul iyo wixii biyo fadhiyaba waxaa ku faafay bani aadam fasahaadkiisa oo laga wada abaarihii, dhibaatooyinka. oo badda abaarteedii maxaa naga tusaya? wallaahi xataa malayga badda ku jiro wuxuu la dhibtoodaa bani aadam macaasidiisa dhibka ka dhasho. sida abi hurayra uu yidhi radi allahu canhu, dadaa waxay yidhaahdeen qofka daalimka dulmigiisa asiguu ku eg yahay. abi hurayra wuxuu yidhi radi allahu canhu, kadabt, bal ina alkhubaara waa shimbir shimbiraha ka mid ah. wuxuu yidhi duulkeeday ku dhimataa bisababi macsiya oo dulmi alinsaan. duulkeeda ay ku jirtay ku dhimataa. dabcan gaajo, cudur
insaan macsiyadiisi darteeda. xataa dibqallooca masaskii wax badda ku jiro insaan fasahaadkiisi ayay la dhintaan. hadday abaar dhacdo, roob la waayo, kulayl dhaco, siduu bini aadamka u saameeyaa xayawaanka beriga iyo badda ku nool. markaasay yidhaahdaan haadaa shu'nu bani aadam. bani aadam bacawnimadiisa iyo baaskiisa weeyaan waxa dhibkaan noo keenay. ma ku fakarti maalin in quraansha adiga darkaada ay u dhibaatootay, inta u weyso bishaqo u qabato? waxaa laga yaabaa weligaaga inaadan ku fakarin. axibatu lkiraam, arrimahaasoo dhan waxay noo horseedayaan inaan diinteenni barano, cilmi inaan yeelano, saan u ogaano mas-uuliyadana saaran. haddii quraanshada darkaada u dhibaatoonayso, macsiya adiga aad samayso ood isleedahay horaa isku soo xirtay, dantaadaad gaartay, wax walbaad hagaajisatay, quraansha hadday u dhibaatoonayso maxaad u malaysan lahayd? arrin sahlan maaha. goormaa ogaanay arrinkaas oo dhan? markaad aqoontaas yeelato. bani aadam wuxuu sharaf ku yeeshaa cilmiga, sida nabigeenu uu yidhi sala allahu calayh wasalam, wa ina allaha wa malaa'ikatah wa ahla alsamaawaati waalard wannaml fi juxriha waalxuutu fi baxriha liyusalluuna cala mucallimi الnaas alkhayr, oo kama qaala sala allahu calayh wasalam. allah malaa'igtiisa, ahlu الsamaawaati wa ahlu اlard, xataa quraanshada godkeeda ku dhex jirto, waa wax ugu yar khalqigan ay ka mid tahay. wa xata alxiitaan, nibiriga waa waxyaabaha ugu weyn adduunyada ilaahay abuuray. nibiriga oo badda ku jiro waxay u duceeyaan calaa mucallimi الnaas alkhayr, dadka khayrka qofka baraya. شوف حبيبي، انت درجة يلان كرو قفة دينك إلهي برنايا طالب العلم. أخي الكريم، معلنا نصر مريض انت وحبة من قربها من الجنازة قادمي، انت انا الماشي فبي قفة كان يمرهن معلنا الجنازة لقد قادم دونا. معلنتاس ايش رأيك؟ hadday malaa'igta ku tahniyadeynayso ay kugu faraxsan tahay, adduun maxaad ka qaadi kartaa? isweydii. darajada ugu saraysa madaxweyne waa haddaad gaartid, maxaad isleedahay kala tegi doontaa adduunyada? intee madaxa adduunyada ka tagtay? shalay ayadoo garbahoodii la buuxay la ilaalinayay, maalin waxay soo mareen ayadoo ayga ka daran sida loo dhagaxmaynayo loo dilayay madaxdii maalmahan dambe aan arkaynay carabaha ka talinayeen. adduun noocaas wa kaba dhig nabada ku dhimatay adoo lagu jecel yahay aaba dhimatayba. allah agtiisa hadduusan waxba kuu oolin maxaad qiimo yeelan kartaa isleedahay? shahaadadaada ma laga yaabaa sheekh nin darajo gaaray shahaadadiisii qabriga loo dhigay weligiina ma maqasheen? garaadadiisii qabriga loo geliyey may. qof kastoo maal kastuu leeyahay dharkoodanu ka qaatay. adduunyadaan haddaan muslim nahay 2 go' ayaan ka qaadanay. laakiin maxaa rasiid u ah qofka? maxaa uu ku baxsanaa maalintaas ciriiriga badan ay kaa harayaan wax walboo ku jeclaa dad iyo dunyada? waxaad keliya ku badbaadi kartaa camalkaaga suuban ood alla u hormarsatay. alla mataqaanaa waa ka ku abuuray caawo indhaha ay gu fiirinaysid ku siiyey, caqliga iyo dhagahaadigu maqlaysid ku siiyey. allahaas ma istaahilaa inaan caasino? isweydii. inaan mid ku noqon ma istaahilaa? asigaa iskale adduunyadan, asigaa anaga na leh.
adigoo saa u dhammaystiran wuxuu awoodaa hal xidid inuu ku qalajiyo beerka lagugu arkacdo wiljeer lagugu wado gaari lagugu wado aawi lafahaagi weli sidiisi waa aawi hilibkaagi weli sidiisi waa xidid keliya wuxuu awood ku yeeshay inuu ku fariisiiyo laakiin ma yeelin ilaahay sidaanuu kuu qurxiyey awooddaanuu ku siiyey maxaad galab uga dhigtay maxaad ku qaabishay rabbigaga jalla wacala ma ibliis ayaad uga hiilisay rabbu jalla wacala waa falxumo markaad cilmi yeelato way oon jireen saxaabada nabiga ridwaanullaahi calayhim nabiga liday ku ahaayeen waad ogtiin markuu maka ka soo baxay alla soo dirsaday mas-uul la saaray la yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin udig kharaawadaada kuwa kugu dhow nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu fuulay buurta safa waa dhawaaqay waa sabaaxa waa isugu yimid wixii quraysh maka deganayd qofkaan imaan karin qofuu soo diray io soo dhegaysta moxamed muxuu sheegaa maanta markaasuu yidhi haddaan idin idhaahdo buurahan gadaashooda fardaa taagan qurayshay inay idin soo weerartay rabaan ay rabtaa fardaha ay rabaan odayga saaran mayga rumaysan lahaydeen waxay yidhahdeen nacam maa jarabnaaka kadiban been kuguma jarabin weligana been kuguma ogaanin markaasuu yidhi innii rasuulu llahi ilaykum bayna yadaya cadaabun shadiid alla adeegihiisaan ahay xaggiina loo soo diray waxaana iga dambeeya cadaab daran oo soo socdo yacnii haddaad warkaydu yeeli weysaa waxaa hadlay adeerkiisii dadka ugu dhowaa cabdilcuza ibni cabdilmutalib abilahab loo yaqaano wuxuu tabban laka saa'ira alyowm alihaada jamactana maanta wixii ka dambeeya halaag ha kuu sugnaado muxamedo ma waxaanaad noo kulmisay idan axbaabii fillaah allah jalla wacala karaamadaasuu nagu leeyahay sharaftaasuu nagu leeyahay wuxuu noola dhaqmayaa sida waxaan ku qiyaasaya ma lahan sidoo ma maquunin karo awooddiisa ay ballaaran tahay neeftaan aan neefsanayn oksijiinka naga xiri karo haddana ilaah waa noo dulqaataa waa noo naxariistaa wuxuu noo soo diraa cid ma hanuuniso wax noo sheegto waxa naga dambeeyo sida nabigeena sal allahu calayh wasalam uu dhihi jiray low taclamuuna maa aclam ladaxigtum qaliilan wala bakaytum kaiiran haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay wax yaraad qasri lahaydeen wax badan waad ooyi lahaydeen laakiin waxa qosalkeeni u bakay oohinteeni maba jirtaba oohin jahligayna axibatu lkiraam diintaan aan barano si aan u barano rabbilciza oo nabigiisa moxamed ku yidhi sala allahu calayh wasalam faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat ogow qabla kulli shay ya muxamed annahu arrinkii jira inuu yahay laa ilaaha ila allah allah maahan ilaah kale inuusan jirin aqoon u yeelo ayaa ilaahay nabigiisa moxamed yidhi sala allahu calayh wasalam fakayfa ana wa anta anigii adiga xaalkan intee mara nebi moxamed haddii aqoon yeela la yidhi ma jiro qur'aankan dhexdiisa nebiga in ilaahay uu yidhaahdo ziyaado weydiiso oon cilmiga ka ahayn waqul rabbi zidnii cilman warzuqnii fahma ka soo saar qur'aanka nebi moxamed oo alla dhahayo ziyaado weydii oon cilmiga ka ahayn idan cilmigaa ah salaax linsaan insaan hagaagiis iyo wanaagiis hadduu insaan hagaagana waxaa hagaagayo adduunyadana hagaagayso wallaahi dhibkaanna haysto haddaan soomaaliya nahay ma ahan aniga waxaan leenahay hebel iyo hebel iyo hebel maya ma ahan bal bimaa kasabat aydiina anagaa xumi samaynay allihii noogu talagalay inuu na qurxiyo na hagaajiyaan xumaynay wuxuu nagu salliday wax ma xumeeyo haddaad wanaag iyo nimcad rabtaan alla ka cabsada
ballan uu qaada ilaahay inuu idin hagaajin doono. afa aminuu makra allah, war dadku waa la yaabay, ma waxay aamin ka noqdeen ilaahay makrigiis, ilaahay inuu shirqoo lagu qabto. falaa ya'manu makra allah ila alqawmu alkhasiruun. ilaahay makrigiisa aamin kama noqdo, isma dhiibo, isma yidhaahdo raaxaa ku jirtaa ilaa dad khasaaray oo khasaara ay ku soo socoto maahay. idan adduun waa waxan, waa laga gudba, maalmo kooban waayo, laakiin maalinta ciilka ciriiriga lagu dhigo maxaa xaalkaaga noqon doonaa? qur'aankan cadiimka alla noo soo dejiyey meelahay ku dooraystaan, wax aqrinaayo waa yaryahay, haddii la aqrinaayo inuu fahamsan yahay waa yaryahay. wamaca daalik xayaatadeeni dhan waa sida alla uu yidhi, xayaatadeeni waa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilah walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum. mu'miniintii alla iyo rasuulkiisii ajiiba, oo mu'miniinta alla iyo rasuulkiis ma ajiibin, waxaa la leeyahay marba marka ka dambeeya iimaankiin waa inaad cusboonaysiisaan. dadka lala hadlaya nebiga rasuulka sal alla alay wasalam asxaabtiisay ahaayeen, oo mar walba la baraarujinaayo oo la leeyahay allah iyo rasuulkiisii ajiiba. ayagoo ajiibaya ood ogtiin dhiigoodii iyo dhacaankoodii hantidoodii inuu ku soo baabacay diinkan, oo maanta aniga aan harsanayno masaajidahan quruxda badan. rasuulkaas sala allahu calayh wasalam dhowru ku sujuudi jiray, ciiduu ku tukanayay, xataa darin ma oolin masjidku uu ku tukanayay sala allahu calayh wasalam. adiga maanta waxaad maraysaa katiifad oo dareemayna inaad sujuudsan tahay raaxadiisa darteeda. yaa ku soo gaarsiiyey dadaa dhiigoodii, waqtigoodii, hantidoodii ku soo baxay. dadkaasoo alla canaananayo jalla wacala uu leeyahay istajiibuu lillahi walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum. diintaan nolol waa allah inaan adeecno, amarkiisa qaadano, anagay nolol noogu jirtaa, anagay maslaxa noogu jirtaa, anagay wanaag noogu jirtaa. in dadka muslimiinta walaalahaaga ood u dhimrisid, kan jaahilka gabow ku sii socda inaad gacanta qabatid, sid xasilan mayr ah aad u waanisid, aadan dhin maxaa igu jira, lianna halisaan ku jirnaa, allah caradiisaan halis ugu jirnaa, laakiin isma ogin. waxaan ku ogaan karnaa ilaahay diinkiis. cumar ibn alkhataab waad og tihiin islaamnimadiisu islaamka cizi ku yeeshay. ashuuray ku addimayeen asxaabka nabiga ridwaanullaahi calayhim cumar intuusan soo islaamin. cumar maalintuu soo islaamay wuxuu yidhi yaa rasuul allah, maxaa aan intaan ugu dhuumanaynaa? gurigay ku dhuuman jireen, daarul arqam la yidhaahdo. sababta gurigaan aan ugu dhex jirno maxaa waye yaa rasuul allah? waa baxaynaa u yidhi. xaq miyaanan ku taagnayn? haa. quraysh baatil maysan ku taagnayn? haa. waa baxaynaa yaa rasuul allah. bannaankay soo baxeen. maalintaa ka hor kacbada saxaabada kuma tukanin islaamnimadoodu. wamaca daalik cumar radia allahu canhu waa cabsan jiray. xudayfa uu imaan jir nabiga markuu dhintay sala allahu calayh wasalam kadib uu yidhi yaa xudayfa unashiduka billah, allan kugu weydiinayaa, hal kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yacudunii min almunaafiqiin? laa ilaaha ila allah. allan kugu weydiisanayaa xudayfe, rasuulka munaafiqiinta miyuu ugu tirin jiray? waa cumar, ninkaa waay faaruuq alumma. anaga maanta ahlu janna isku malaynaa, anagaa is siinay saxiixii ahlu janna. haddaad tukatay waxaad is leedahay al raalli uu kaa noqday. la axibatu lkiraam, wax walboo macaan diinkan ku jiro, cilmigaa ku sheegaya, cilmigaa ku baranaya, haddaad culimmada ag fadhiisatid, laga yaabo masjidkan inaysan 10 qof fadhinin markii cashar la aqrinaayo.
aaw dadka intay jiraan maslaxadooda ma jiraan wax dhibkooday jiraan laakiin maslaxadooda nabigeena sal allahu calayh wasalam dhaxalkii uga tegay waaye inaad soo harsato beydka ilaahay saad rabbi raali ku raali gelisi jalla wacala cumar radi allahu canhu salaadaan tukanaa waxa cibaada ugu fiican hadda aan hayna salaad waa salaadeenina xaalkeedii waad og tihiin salaada aan tukan waad og tihiin daran adduunaan ugu jira waan ognahay daqiiqad salaada aan tukanayno laakiin ma ogin imaamka waxa uu aqrinayo qur'aan waa tirsanaynaa saacadda waa daalaynaa sababtoo qalbigiia nuur ku jirin ma adkaysan karo ma macaansanayo nuurka cumar radi allahu canhu doormaa abuu lu'lu almajuus uu dilay mataqaana uu ku raadsanayo fursadduu ku dili lahaa cumar markuu salaad ku jiro ma ku dhiiran karin cumaroo soo jeeday inuu dilo muddo dheerna waa gaadaya cumar inuu dilo saxaabi wuxuu leeyahay safka afaraadaan ku jiray fijirka cumar la dilaayo cumar wuxuu akhrinayay inamaa ashku badfii wa xuznii ila allah wa aclamu min allah maa laa taclamuun allah u sheegana waa hadalkii nabiy llaahi yacquub markii yuusuf ceelka looga riday inamaa ashkuu badfii wa xuznii ila allah murugadayda tiiraanyadayda allah u sheegana wa aclamu min allahi maa laa taclamuun waxaan ka ogahay ilaahay waxaydan ogeen ayuu cumar akhrinaya asigoo ooynaayo nasiijkiisa ama codkiisa oo hintu isku celinaayo safka afaraadan ka maqlaayo uu yidhi saxaabiga wax yar kadibna cumaraa la dilay radi allahu canhu cumar waa qaban karay ninka toorayda 6 qodob ku dhiftay muxuu u qaban waaye saxaabada nabiga sal allahu calayh wasalam salaad markay tukanayeen ma joogin dhulkan siduu ilaahay nabigiisa muxamed sal allahu calayh wasalam salaada markuu u soo dhiibaayeyba malak jibriil aan loo soo dirin dhulka lagu keenin salaada bal asaga la waday la geeyey ilaa sidrat almuntaha oo allah uu ku tilmaamay id yagsha sidrata maa yagsha ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى سمدها الوضع يوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أسمرك للصوصين هاي الله يعصيك واسطة أمود حينين صلى الله عليه وسلم صلاة وإن أبدا أي كاحن بار كاطنك مركا تكنيست ايضاً برامين ما حولك وحاجة دار كذا وإنك رب العزة هرتا ذلك آدر انت أول الله أكبر مركز لاذا هاي انت دويسي سنة الصوصة أتب إنك جوجس الدوض إيو الدعوة إيو مرم كعادة هاي ست قلبي هذا قصر استحضار ستد ربي وعاد رب هرتا قدونت كوني ست إزدرين سي ست الله لكل بدونتها الله أكبر مركات تراد المير إنه كجدا بيه عمر رضي الله عنه أبو لؤلؤ المجوزي صلاة فجر مركو كجري واللح قضب طوري كل فتي عمر مركا صودعي رضي الله عنه مركو بيك بحي مركا سوريا يقول فتي هبيد مركو يدي هذا الظهر عمر مركو صوم يراوحوا الصلاة والصلاة بملك كذي سبحان الله الرأي الدعوة أيضا العزبتال إلى أردنية صلاة بملك كذي أحبة الكرام علمي إن أقول لنا الدين كان لقم مارمان وسعا أراحي السنة صلاة بصفكين حتى مؤذن إن تكنني إنك لمؤذن سي الله رأي موضوعنا هنا واتك توابح من وحا ليس إلا ذا أقبلي الله سبحانه وتعالى كتاب كيس منزل كيري والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم
raajicuun kuwa bixiyey ama bixinay markas ay la welwelsan yihiin hadday da'yar yihiin hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba cabsigaa ku jira rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ummana caaisha xaaskiisa ha weydiisay yaa rasuul allah alladii yazni wayasriq wayakdib ka zinaysta miyaa kaas iyo kuwa wax xadaan kuwa beenta sheega miyaa ma yidhi ya caaisha waa kuwa tukada maalkooda wax ka sadaqaysta oo wanaagga ku dhaqma haddana rabbigooday ka cabsanaya allahu akbar subxaan allah marka axibatu lkiraam ilaahay cabsidiisa danay noo tahay wax lagu faano waayo ahlulfisq ahlulmacaasi dadaa maanta shaydaan si toos u caabuda waxyaabaha adduunyada ku soo kordhay ay ka mid yihiin kiniisadaha kiristaan yahuuda ogeyd waxaa jira kiristaan shayaatiin lagu caabudo si toos shaydaanka lagu caabudo dadkan maanta taatuuga samaysto wejiyadooda jirkoodii xarbo wax ku dhadhajiyo si toosay shayaatiin u caabudaan oo maanta aniga ciyaalkeenin isku masayraan markay ismasayrayaan calaamadda noocaas ah sigoo saa dhacayo ninkii yaraa ama gabadhii wuxuu yahayna ma ogo waa calaamada ay ku caabudaan ibliis kuwa ibliis caabuda markay sidaan yidhaahdaan cibaado waa allahu akbar ado aabahaysid oo kale waa anigana ciyaalkeeni musawirkoodii waa isku salaanaa dhallinyaradeeni jahli dartiis adduunyada waxaa xun adigoo aad moodid in wanaag uu kuu yaalo murtadna uu kuu qasan yahay marka walaalahayga aan jeclahay ummaddayda wax kale ma ahan waxaan idin soo hor fadhiistay wejiyadan quruxda badan inuusan naar gubin darteeda weeyaan alla uusan na cadaabin cadaabkaasaa isaga badbaadino aan isu naxno aan isu tirno ilaahay diinkiisii adigay ku sugaa si mayr caqli deganaan ummaddaada ku gaarsiin iyo jacayl si nabigeena sal allahu alay wasalam ummaddiisa ugu gaarsiin jiray uguna dulqaadan jiray dhibkooda naxariis ummaddaada u samee naxariis maahan qofka shilin ku siiyey waa qofka aakhiradaada hagaajiyey aan isku darabsano diinkan ilaahay ay ugu horayso cilmi aan barano markaasaad ogaan doontaa mas-uuliyada ku saaran axibatu lkiraam allah ha idin xifdiyo hana idin barakeeyo meel kastoo adduunyada ay ka joogtaan ilaahay diintiisa aan barano markaasaa camal falkeena iyo waxa aan samaynayno murihiisa aan dhadhamin karnaa mu'minka wuxuu la mid yahay qof shaqaynaayo oo ku xisaabtamaya maanta meeqaa ku soo gashay caawa markaad hooyatood xisaabtamaysa wax badan hadduu ku soo gal waad farxe hadduu wax ku soo galin waa tiiraayoone mu'minka waa ka soo bariyo ama gobolka soo dhaco waa inuu ku fakaraa maxaad ziyaadsatay oo iimaan allah ugu dhowaatay salaada subax maanta macaan ma ku tukatay ma dhadhamisay ma dareensaneed rabbi inaad hortaagnayd caawa markaad hoyanaysa qalbigaada ma ku jiraa caawa ma dhiman doontaa goormaha rabbi la kulmay wallah ilbaxnimo raaxo qurux wax walbo alla janno kugu talagalay oo kugu diyaariyey acdadtu licibaadiya الصaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaad u ordaysid raaxo iyo wanaag le maahana ogow wallaahi adduunyadan kuma helaysid ninka maantaad waddanka u taliyo sidaa kaa dhib badan maantaba ciduu la kulma maantaba wafduu la kulma maantaba socdaaluu ku jiraa
adigu waxaad u moodaa madax haddaad noqotid maalqabeen noqotid inaad raaxaysanaysid maya wallah adduun maalintay kuu ziyaado murugadaadaad ziyaadayso maalintuu adduun kuu ziyaado murugaa kuu ziyaadayso laakiin noqo kan markay adduun uu u ziyaado asigana allah agtiisa ziyaada ka raadsanayo waa raaxaysan saxaabadeena madaxay soo wada noqdeen shalay markay duleysnaayeen marka joogeen haddana madaxtinimadoodii kama mashquulinin cibaadada rabbigooda subxaanahu wa tacaala fiihi rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah wa iqaami asalaa subxaana allah alla markuu ammaanaya masjidi quba ama madiina alla wuxuu yidhi ragaa ku sugan rijaalun laa tulhiihim aan mashquulinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun beec can dikri illah allah xuskiis aan ka mashquulinaynin wa iqaami asalaa iyo salaada oo la toosiyo adigan maanta derbiyadaad taagan tahay ayadoo la aqimaayo war ma haysid wax macad adduunna ma haysid oo la leeyahay waa mashquulsan yahay axibatu lkiraam war gurigaaga markaad u hayatid allahaaga bari inuu kuugu kaalmeeyo diintiis diintan hibadeedan alla bixiyo garaad laguma helo caqli laguma helo kartina laguma helo laakiin waxaa laga helaa fadlun min allah allah inuu kuu garto allahaas baryadiisa bari inuu ku hanuuniyo khaatimadaada uu suubiyo saad u noqotid kuwa alla uu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كوي ربي قيني الله هو كلمة معان بدن ربي قيني الله هو كل قيني واني رحنا لكن قف أي وحي كته مركو كلمة دعيه قلبي بي سقبه وكدا بني indhihiisa raaxu dareemaa jirkiisa wuxuu dareemaya jirwao waa qaboobaa jirkiisa ee kullu man qaala rabbi allah ma dareemaya kelimaadkaas ilaa qof alla siistay maaha ina aladiina qaaluu rabbuna allah rabbigeena allah wayaan cidana sida aan ma caabudayno uma markay saa yidhaahdeen tawxiid ka qirteenna istaqaamuu ku toosnaadeen kelimadaas ay yidhaahdeen maxaa dhacaya maalinta ugu murugo badan waxa soo maro oo maalinta geerida ah maalinka murugo badan ma lahan wejiyadaana soo xusuusanaysaa asxaabtaadaa soo xusuusanaysaa adigoo cisbitaalka ku jiro ama meel xooran neefta kugu dhegtay ama gurigaaga joogaba jirkaaga aad dareentay kulayl qandho naxdin iyo welwel lagu wadi doono aad soo xusuusatay gunuubta lacagta kugu jirto ciyaal haddaad dhashay iyo hadday kula dhasheen iyo wixii ku dhalayba aad soo xusuusato waa maalinta ugu qaraar badan insaan waxa soo maro oo shiddo ah laakiin dadaa raaxaysanaya dadaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala tatanazzalu calayhim almalaa'ika ملائكة كسر بيغنيسو نبينا حديث كيس وكعديي بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة الله أكبر اللهم اجعلنا منه ملائكة كسر بيغنيس وجيود النور قرح ذا أكل وإفيا قرح وحيك قبان دكا ويكو أين ويان وبنتي على ليا وبمن ربا adigana marxalad kala u gudubtay ka raaxo badan ma dareensanid neeftii kugu dheganayd dhaawicii ku haayay dhibkii ku haayay xanuunkii ku haayay isla markii aragtidaasaa kaa zuulinayso tatanazzalu calayhim almalaa'ika
maxay leeyihiin anlaa takhaafuu ha cabsanina walaa taxzanuu ha murugoonina waabshiruu biljanna janna ku bishaaraysta malakulmowdaa imaanayo madaxaaga soo fadhiisanaa sigoo caada qurux badan uu kula hadlaa hadal aan maqlaynin qaraabadii iyo dadka iyo wixii kaa agdhowaa ayatuha nafs almutma'inna nafsadii xasishayey ukhrujii ilaa rabbiki rabbigaaga u soo bax wa huwa raadin canka sigoo raali uu kaa yahay waa hadalka ugu macaan badan insaan la dhaho uu jeclaysto kelimadaas oo nebigu yiri ruuxdu waxay uga baxeen sida khuraaradda biyaha ugu dambeeya uu ka soo taslo farxadda ay qabta darteeda oo rabbi maa raali iga ah adduunkan mar iga wata anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljanna muddadaas dhan intuu sakaraadka yahay la leeyahay waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun adigana faleebaa kugu suran madaxa biyo qabow lagaa saarsaaraya laakiin wax ka macaan badanaa kuu saaran aad u jeedaa axibbat alkiraam arrimahaasoo dhan waxaan ku heli karnaa rabbi oon raali gelino cilmiga diinta oon garano see rabbi u caabudnaa sidee rabbi u caabudnaa salaadoon hagaajino dariskoon nabadgelino asxaabtoon wanaajino inuusan qof insaan kaa sheeganin dhibkaaga xayawaan kaa sheeganin daris kaa sheeganin qaraabo kaa sheeganin ayaad ku gaari kartaa fadligaas iyo karaamadaas iyo darajadaas rabbigaagana xiriirkiisa aad xoojisid dulmiga aan iska ilaalino dhibka aan geysanayn aan iska ilaalino aan noqono dad maxbuubiin ah la jecel yahay geeridooda loo ooyo noloshoodana loo duceeyo ilaaha isku dhiibno walaalahayga wax badan waa idin jeclahay alla waxaan ka baryaa inuu hanuun nooga dhigo fadhigeenna ku alla nagu hanuunin lahaa qalbigeenna ku wanaajin lahaa alla inuu naga yeelo jalla wacalaa gaar ahaan reer xamar weyne ilaahay ha idin xifdiyo ilaahay xuquuqdiina ha idin siiyo ilaahay ma ku gaari kartaan danta aad leedihiin ilaa rabbulciza inaad raaligelisaan maahe markaasaa alla idin raaligelinaya guud ahaan ummaddayda soomaaliyaan leeyahay ilaahay oo amni iyo ammaano sii nabad sii barwaaqo sii ilaahay oo kurbadan iyo welwelkaan ka sii ilaahay oo ka yeela ummad qalbigooda isu soo jeedo midaysan adduunkoodii aakhiradoodina wanaajiya بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادني وأراد أمتي سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك برضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.